بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كينا مانتو حنك بلاوينا how to draw the structure of alcohols sidee loo qoraa qaab dhismeedka alcoholada cashirkii hore wuxuu noo ahaa how to name the structure sidee loo magacaabaa qaab dhismeedka alcoholiska maanta magaciyaan qaadanaynaa structure-kiyaan samaynaynaa cashirkii horena structure-kaa nala siinaayay qaab dhismeedka magacaa nala ka rabay marka waxaan u shaqaynaynaa opposite sida caadiga ahayd cagsigaan u shaqaynaynaa okay example-ku ugu horeeya draw the structure of 2-methyl 1-pentanol waxaa nala ka rabaa inaan qorno qaab dhismeedka ama structure-ka uu leeyahay 2-methyl 1-pentanol okay markaad wax sawiraysa sidaan hore usoo sheegnay marka ugu horeeya waxaad qaadanaysaa nameka lagu siiyey ama magaca lagu siiyey magaca ugu dambeeya waa benta waxaan naqaanaa inay ka kooban tahay 5 carbon atoms 5 carbon atom marka ugu horeyn waxaan qoraynaa 5tii carbon atom 1 2 3 4 5 intaas markii aad qortid waan nambarinaynaa 1 2 3 4 meeshaan doonaan nambar ka bilaabaynaa haddaan doona halkaan ka bilaabaynaa intaan u soconaynaa haddaan rabno intaan ka bilaabaynaa intaan u soconaynaa okay aan ka bilaawno halkaan 1 2 3 4 5 okay numberskaan ku qornay haddaan rabno intaan ka bilaabi karnaa 1 2 3 4 5 isku mid waaye hadda labo waxaan ku dhejinaynaa methyl sidee lagu qoraa adiga methyl waa 1 carbon iyo 3 hydrogen ama CH3 aan ku dhejino CH3 kaarboonka labaad kor iyo hoos midaad doonta oga dheji annaga waxaan oga dhejinaynaa hoos 1-pentanol hal waxaa ku dhegan OH groupkii lagu yaqaanay ama lagu garanayay alcoholka number 1 uu ku dhegan yahay marka halkaan ku dheji hadda hydrogenada u buuxi waa naqaanaa sida hydrogenada loo buuxiya kaarboonkan single bound uu leeyahay hal dabar uu leeyahay 3 dabaraa ka dhiman 3 dabar booskeeda waxaa u gelaaya 3 hydrogen marka kan waxaan ku daraynaa 3 hydrogen kan 2 dabar uu leeyahay 4 dabaraa laga rabaa labaan ku daraynaa kan labuu leeyahay labaa ka dhiman kan 1 2 3 ayuu leeyahay halaa ka dhiman kan 1 iyo 2 uu leeyahay kan waa lambar labuu leeyahay labaa ka dhiman sidaas ayaa loo qoraa structure-ka alcoholka example-kan qaabkaas ayuu noo noqday 2-methyl 1-pentanol qaabkaasaa loo qoray waxaan u gudbaynaa example-ka labaad draw the structure 3-bromo 3-hexanol structure-kaasaa nala ka rabaa sharcigeena wuxuu ahaa inaan qaadano markaan drawing samaynayno magaca ugu dambeeya ee nala siiya hexa waa 6 carbon atoms
6 kaarboon atom qor. Okay, lixda waa qornay. waan nambarinaynaa marka labaad kan 1 2 3 4 5 6 number 3 broma ku dhagan. number 3 OL ku dhagan. OL muxuu muujinaa alcohol ka functional group kiisana maxaa waay OH group waay. OH group wuxuu ku dhagan yahay kaarboonka saddexaad. bromana waxay ku dhagan tahay kaarboonka saddexaad. saas daraadeed magacaan numberkan halkaasaan ku dhiganaynaa. halkan waxaan ku dhijinaynaa OH group oo ka saddexaada iyo bromo oo haddana ka saddexaada. B capital R small bromo. Okay, intaas wixii ka dambeeya hydrogenadan buuxinaynaa. hydrogenada qaabkee loo buuxiyaa? kaarboon walba waxaa lagaa rabaa inuu yeesho 4 bounds 4 dabar. Okay, aan xisaabina marka. midka ugu horeeya hal dabar uu leeyahay. 3 dabaraa ka dhiman. 3 hydrogen ayaa booskaas ku daraysaa. midkan ku xiga 2 dabar uu leeyahay. 2 hydrogen ku daraysaa. halka hydrogen waxay u taagan tahay single bound ama hal dabar. kan 1 2 3 4 afartiisi dabar waa kaamil way u dhan tahay. waa hydrogen ma ku daraysid. kan 2 dabar uu leeyahay. 2 hydrogen ka dhiman. 2 hydrogen ku daraynaa. midkan 2 uu leeyahay. 2 ka dhiman. 2 ka dhiman ku daraynaa. midkan ugu dambeeya 1 uu leeyahay. 3 ka dhiman. 3dii booskeeda waxaa gelaya 3 hydrogen gelaysa. waa kaas 3 bromo 3 hexanol. structurekiisa qaabkaas ayaa loo qoraa. sidaan ayuu noo noqonayaa. waxaan u gudbaynaa examplekii saddexaad. waxaana la weydiiyey draw sawir the structure qaab dhismeedka 2,4 bentane diol. Okay, diolis maxaa la dhahaa? diolis iyo triolis waa diolis waxaa la dhahaa alkoolada ay ku dhagan yihiin 2 OH group. diolis tusaale kan diol waaye. diolis kan waa diol. triolna waxaa la dhahaa alkoolada ay ku dhagan yihiin 3 OH group. alkoolada ay ku dhagan yihiin 3 OH groups. tusaale kan oo kale OH groups ku dhagan waxaa lagu magacaabaa triolis. tri oo 3 ah. OL oo tilmaamaysa alkoolka. marka
aan magacaawno kan structure-kiisa aan qorno 2,4 pentane diol. marka ugu horeeya benta waa imise carbon? benta waa 5 carbon atom. 5tii carbon atom aan qoraynaa. waa nambarinaynaa. meesha rabnaa ka bilaabaynaa nambarka. intana waa ka bilaabi karnaa, intana waa ka bilaabi karnaa nambarka. okay 2 iyo 4 waa lagu dhegan yahay. yaa ku dhegan 2 OH group. 2 OH group. 2 waa kan, maadaama kor uu nambar iigu qoran yahay hoosaan isticmaalaa, laakiin kor iyo hoosba meeshaan rabtaa ku dhejin kartaa. OH group ku dheji halkan. number 4na waa ka OH group ku dheji kan kor aan uga dhejino. lambarkana intaan ku dhiganaynaa. hydrogenada buuxi. hydrogenada sidaa daayaan buuxinaynaa. oo seenu buuxinaynaa kan single bound uu wataa kaarboonkan 3 xabaa ka dhiman. 3 hydrogena gelaysa booskan. kan 3 dabar uu leeyahay. kan 1 2 3 4 dabaraa laga rabay. halaa ka dhiman. halkii booskeedii hal hydrogena gelaysa. kan 2 dabar uu leeyahay. 2 ka dhiman. 2 hydrogen waa. kan 1 2 3 3 uu leeyahay. 3 dabar waxaa ka dhiman hal dabar. hal hydrogena gelaaya. midka ugu dambeeya single bound uu leeyahay hal dabar. 4 laga rabay. 3 ka dhiman. 3 hydrogena gelaysa. wakaas 2,4 pentane diol qaabkan ayuu noqonayaa. waa kuwaan 2 OH group oo number 4 ku dhegan midna ay ku dhegan tahay number 2. cashirkeennii maanta oo ku saabsanaa how to draw the structure of alcohols, sidee loo sawiraa qaab dhismeedka alkoholada. intaas ayuu ku egyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.